culusa allahayo naftu caata badana arrimuhu cuyubana cilkaan biwayna asxaabta ku soo dhawaada sheekooyin macaan iyo heese macaan heestaa hordhaca aydiin hayd waxay ka soo turjumi doontaa sheekooyin qiso dhaba oo dhacday codka iyo sheekadaba ninka inoo wada waa Shaafici Maxamuud anigoo Mustafa Maxamuud Jaamac la socodsiinaya asxaabta channelka waxaan leeyahay subscribe like iyo share iyo comment inta midna hay loobina wuxuu oran doonaa ma goobo caashiq mana geeriyoodo ma yaqaan gacalnimo haduu gadoodana waa gacan ku dhiglo dadku u gumada gabiyada wadnaha haduu beer ku galo halis way geedka goorma daawo loo heli Shaafici ba qisado dhameystiran noo sheegi doona ku soo dhaw Shaafici sida ka muuqata ereyga ama page-ka hore ee heesta adu waa jacayl kale dhoobay sidaynu aragnay hadda jacaylku uu dhibaato badan yahay marka laba qof jeclaanayaan ama ay istoonayaan iska soo xurshaan dadkana inay hadda jeerku tashadaan inay is helayaan labada qof maaha waa in rajadu fiican way fiicantay laakiin waxa jirta de waa adduunyo oo hore ayaa loo yiri adduun hawli kama dhamaato oo Maxamed Yuusuf ba Allahu naxariiso hore uga heesay ilan hohiku ma boksiiso hamigu warwarka ma biyo hal waaku makeeno adduun hawli kama dhamaato yeena ka bixin mawduuca adduunyada ay nala gashay adu waxa jirtay laba qof oo aan aad u aqaan labadaba aad bay jeclaayeen marnaba bay niyadooda iyo qalbigooda toona galin way iswaaysan waxaynu had jeer aragnaa in waalidku uu had jeer ilaa waryaana ku dhalay taasana ku ogahay iyo gabadheeyana ku dhalay kaasana ku ogahay way dhacday in badan in marka wiilkii ku dhacday aad bay isu jeclaayeen ku sinaan 3 sano aan idhaahdee 2 sano iyo badwan loo socday sheekadooda alla ismu calfin waxa dhacday in wiilkii markan inanta kuma ima sheekadu wiilkay ku timi aabo anaa ku dhalay habaariyo duca kala dooro sida caadadu Soomaalideena waxaan sameeynayaa inantaa in hebel baan kugu ogahay inankii ha goob yaalo inantii kula hagaagi waa sideed ugu sheegtaa kula hagaagi waa wuxuu wadaba guntiga xidhay isagoo sii jeeday inantii saasa jirtay ma wax laga filayaa ma wax meesha qabataa arintii saxnayd niyadii wacnayd waxa la wixiba hal mar bay inantii ka dhabaa ayaa hadal dambe tiraada ugu dambeysay dhacday inanka sidii buu ka aroos kalay inantii sidii bay kaga samirtay muddo kadib adigu dhibaatada haysato waa la iska garan karayaa inantaas arinta lama filaankii ku dhacday maasiyadii iyo wixii ay soo qori jireen ayaa isagii oo aroosa ayuu ka deyn waayay la cishq waa balay inuu yiraahdo maxaan sameeyaa waxba igu dhacay iyaduna ay ugu soo jawaabto waxaan way dhaceen waa week kadib mar ay soo mirowday ama ay soo kacday de miirashuhu waa marka la mirowday waa mar ay waxyaabo badan intay sugaysay Ilaahay waafajiyeen iimaan uu yiri wax walba xaga ay ka socdaan inantii way u caqlicisay inankii sheeko walba hees bay leedahay iyo wax udub dhaxaada inankii waxa uu qaaday culusa allahayo naftu caata badana arrimuhu cuyubana cilkaan biwayna madulkan colowno cirkana igu soo dumay waa maxay xidhiidhigu erayo lamida ayay inantu ugu soo jawaabtay oo ay leedahay talawaa calooladay ay leedahay haddii wacdikii caariday anna caashahay diilo adiguna caaqiilow caafimaadku noolow inantii baa wadata weli waxay tidhi waxay daruuri curataa
marka caadil shubaaye dhiribtu waxay cusbaataa ay curubta saartaa inankii wuxuu leeyahay haddii wacadkii caariday anna caashahay diilow adiguna caqiiloy caafimaadku noolow marka waxaan leenahay kolley hees ay muqul qaadi jirtay waxay tahay kalgacaylka ragaa 10 sano halkuu jiro uu soo releeya markaa jacaylka waaro dee adigu hawlaha adduunna way iska badan yihiin markaa sheekadeenu caawintaasi ku eg tahay aad iyo aadna waan uga xumaaday laftayduna qisooyinkooda sidii aan u ogaa inantaa iyo inankaa arrintaas ku dhacday dee waa adduuna hawl kama dhammaato saan hore u sheegay aad iyo aad baynu salaamna ninka odayga ahaa ilaahay qalbiga uga reebo iyadana meel roonna ha maryaanu leenahay jacaylku ha waaro السلام عليكم